olole la magac baxay tacaawun oo lagu caawinayay dadka danyarta ah ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Bure ee xarunta gobolka Togdheer. Ololahani oo socday muddadii ku aadanay bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa isugu jira caawin afurin ah iyo sidoo kale ciisiin. Haddaba waxaa saaka si rasmi ah lagu wareejiyay dharka ciidda carruurta kooban 200 agoon ah. Waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay Suxufi Maxbuub Xuseen Ismaaciil waxaana ka mid ah hadaladiisii sida tan. ku soo afmeereynaa barnaamij khayriya oo aan wadnay bisha Ramadaan oo la yiraahdo lana magac baxay ololaha tacaawun. ololaha tacaawun oo olole khayriya oo laga hilgeliyay ama ka howlgala magaalada Burco qaybna ay ka yihiin dhalinyarada gobolka Togdheer oo ay qayb ka yihiin warbaahinta iyo qayb kamida ololahaas oo u shaqeeya ama u adeega in uu soo bandhigo dadka danyarta ah ee jilicsan ee Ilaahay inagu hoos imtixaamay. ololahaas bisha Ramadaan bilowgeedii waxaanu fulinay 4 mashruuc oo waaweyn. mashruucii ugu horeeyay aan fulinay 15 cisho ama 15kii cisho ugu horeeyay Ramadaan ayuu naga qaatay. waxaanu u qaybinaynay qoysaska danyarta ah ee magaalada Burco degan qoys walba raashin qaydin ah oo iskugu jira 7 nooc 326 qoys. waxa kale oo noogu xigay 15kii dambe Ramadaan sadaqo jaari ah oo maalintiiba aanu qaybinayna dadka masaakiinta ee gidaarada ku dawarsada dadka qoysaska jilicsan. kale noogu xigtay alxamdulillah masaajidada kamida magaalada Burco ku yaala ee kamid yihiin masaajidada dadka danyarta ah ee cibaado saalixiinta ay ku xiran yihiin in aanu geyn jirnay masaajid walba ilaa dhowr iyo 30 afuro bisil oo one time ah oo ay ku afuraan saa'imiinta Ilaahay u sooman. sidoo kale waxa maanta aad arkaysaan oo aad dhabarkayga ka arkaysaan muuqaalkuna inuu aad ka wada arkaysaan 25kii Ramadaanna aan bilownay ciidsiinta tiro ku dhow 200 oo caruura oo agooma. 200 ee caruur ee agooma waxaan ka soo kala qornay xaafadaha danyarta ee magaalada Burco ka kooban. aad iyo aad baan kulli farxad badan baan la dareemaynaa caruurteena agoonta iyo rajada isugu jirta. waxaan halkan uga mahadcelinayaa kelmadeedu waa mahadcelinayna inaan mahadceliyo dhammaan ummadii ka soo qayb qaadatay ololaha tacaawun ee dadka masaakiinta ee saa'imiinta iyo caruurta agoonta ka farxiyay in Ilaahay iyagana ka farxiyo. waxaan ku talin lahaa aan soo jeedin lahaa haddaanu nahay dhalinyarta gobolka Togdheer in aynu mutadawacnimada u soo jeesano xoogeena iyo aqoonteena iyo maskaxdeena aynu dadkeena danyarta iyo bulshadeena ugu adeegno istusno kii waxaysta iyo kii nuglaa. dhanka kale waxaa ka hadlay barasaha gobolka Togdheer Mudane Xamse Maxamed Cabdi waxaana uu yiri ay ururka tacaawun ololaha tacaawun ay siinayeen ama ay ku iidsiinayeen caruur fara badan oo agooma oo ka tirsan caruurta gobolka Togdheer ama magaalada Burco. runtii dhalinyarada barnaamijkan samaysay oo ah dhalinyaradii saxafiyiinta ahayd waan bogaadinayaa marka koobaad. waxaan ku bogaadinayaa in ay maaragtay tuseen dadkii walaalahood ahaa ee jilicsanaa ee nuglaa inay saxaafadoodii ama mihnadii saxaafadda ay barteen ay uga faa'iideysteen inay tusaan dadkaasu inay nugul yihiin oo u baahan yihiin. ka yahay saxafigeena weyn Maxbuub waan maaragtay u mahadnaqayaa waana ku dhiirinayaa saxaafadda kale ee wiilal iyo gabdhaba leh inay sidaas oo kale iyaguna maaragtay barnaamijyada tacaawunka ee dadka lagu loo tusayo ama loo soo bandhigo. Cabdiraxmaan Ciise wararka telefishinka caalamiga Soomaali Cable Burco.